رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan muhiim ah waxa magaalada Addis Ababa kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka jasiiradda Seychelles waxaana kala hadlay sidii dawladda Soomaaliya loogu wareejin lahaa maxaabiista faraha badan ee Soomaalida oo ku xiran Seychelles kuwa u badan dhalinyaro ku eedeysan burcadbadeednimo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa madaxweyne ku-xigeenka Seychelles u sheegay in Soomaaliya ka jirto dawlad awood u leh inay la wareegto maxaabiisteeda ku xiran caalamka isla marhaantana ay wax badan iska bedeleen marxaladii hore ee sababtay in dadka Soomaaliyeed lagu xiro dalalka caalamka in dawladda Soomaaliya hayso wada dhalinyarada Soomaaliyeed looga weecinayo inay ku dhacaan faldambiyada ay ka mid yihiin burcadbadeednimada iyo argagixisada shaqo abuurna loo sameeyo si ay qayb uga noqdaan horumarka dalka Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka Seychelles ayaa soo dhaweeyay horumarka dawladnimo ee xilligan ka jira Soomaaliya isla markaana ay dawladdiisa ka go'an tahay inay la shaqeyso dawladda Soomaaliya maxaabiista Soomaaliyeedna ay dawladda Soomaaliya iyo Seychelles ay ka yeeshaan wada xaajood miro dhal ah iyo in la diyaariyo jawi suurtagelinaya in Soomaaliya lagu wareejiyo muwaadiniinteeda ku xiran Seychelles. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka Addis Ababa.